Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran jeel xirfad ku soo dhowaada muuqaal cusub kaasoo aan ku soo gudbin doono maanta qodobo dhowr ah oo u baahan inaad fahanto intaana trade garayn Pocket Option. Marka hore muuqaalkan like saar haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biir si aan gaadhno kun subscribe. Soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkani waxa uu daba socdaa muuqaalkeenii hore sida aad la socoteen. Qaybtani waa qaybta lixaad ee aan ka diyaarin doono Pocket Option ama Binary Option. Intaanadeedii bilaabin casharkeena maanta waxaan sharaxaad ka bixin doonaa waxa aan u furay YouTube-kan ama kanaalkan. Jeel xirfad waa madal aan ku soo gudbiyo xirfadaha online-ka lagaga shaqaysan karo aniga oo ka rin sheegaya. Ilaa fooritaankii kanaalka ma jeceli inaan soo gudbiyo wax been ah ama been abuur asxaabta cusubna sidaa hala socod. Tan labaad, aniga dad ayaa maalmihii ugu dambeeyey isoo afligaaday iyagoo hore lacag uga iibsaday koorasyo macmal oo ay ku guuldaraysteen. Anigu ma jirto meel aan qof lacag kaga qaatay ama kooras kaga gaday. Intaa kadib dad badan waa ay ka warqabaan inaan u sarifi jiray Sweetcoin oo weliba coins kasta oo ay soo dirsadaan haddii ay gaadhiso lacagta $20 aan u diri jiray una sarifi jiray aniga oo markasta iska ilaalinaya inaan ka fogaado wax xaaraan ah oo aanan anigu lahayn inaan qaato. Haddaba aan gudagalo casharkeena maanta. Casharkii hore ama muuqaalkii ka horeeyay waxa aynu ku soo barannay dhowr qodob. Sidee ayaa loo sameeyaa akoon cusub, sidee verification loo sameeyaa, iyo sida trade view-ga ee shaashadda Pocket Option ee ugu horeysa la iskaga saxo. Casharkana waxaanu ku baran doonaa money management, trade management, currency money, supply candles, uptrend iyo downtrend, iyo support and entry ayaan ku faahfaahin doonaa insha Allah ee soo dhowaada. Mar kale, waa maxay money management? Haddii aad suuqa money management marka lagu leeyahay waa inaad lacagta suuqa aad soo dhigatay management garayn karto ama aad ilaashan karto. Tusaale ahaan, haddii aad suuqa ku soo gasho $5 waa inaad 25 gaadhsiiso lacagtaas adigoo oo qaadanaya 7 trade oo muhiim ah maalin kasta. Waa inaad marka labaad haddii aad suuqa 25 gaadhsiiso aanad is odhan 25kan sii gaadhsii 50, laakiin lacagtaada aad la baxdo $10 markaana aad sii wado $15 ee soo haray aad haddana gaadhsiiso 25 aad la baxda haddana $10. Taas ayaa la yidhaahdaa money management. Trade managementna wuxuu noqonayaa haddii aad suuqa ku bilowdo lacagta sida tusaale ahaan $5 ayuu qof walba soo dhiganayaa. Kadib maalintii wuxuu trade garaynaya uu ku trade garaynaya. Haddii marka ugu horeysaba is idhaa $5 ku trade garee waxaa dhacaya inuu markaaba los galo. Laakiin waa inuu ku bilaabo $1 isagoo oo lacagta markasta $1 ku daraya gaadhsiinaya $10. $10 marka uu gaadhsiiyo haddaba muxuu sameynaya? Haddana wuxuu trade garaynayaa uu tradekiiba u qaadan doonaa $2. $2 marka uu ku qaato wuxuu gaadhsiinayaa $20. waa in haddana $20 haddii uu macnaha ku soo shubto iyo haddii uu gaadhsiiyaba waa inuu $1 iyo 50 senti ku trade garayn karto. Halka $1 iyo 50 senti isagoo ku trade garaynaya ayuu gaadhsiinayaa $30 ama $30 ayuu ku soo shubanayaa. $30 haddii ku soo shubtana waa inuu halkii trade ku galo $3. Haddii uu gaadhsiiyo $3, $30, $40 waa in markasta uu lacagtiisu ay sii korodho uu lacag kala baxo. Haddaba $50 haddii aad gaadhsiiso ama aad $50 ku soo shubato $50 maalin kasta waxaad ku trade garaynaysaa $4. Haddii aad $60 kuugu jiraan waa inaad 4.5 $4 iyo 50 senti aad ku trade garayso. Haddii ay $70 kuugu jiraanna waa inaad ku trade garayso $5. taasna waxaa la yidhaahdaa trade management. Haddaba currency money haddii aan kuu sharaxo waa maxay currency money? Tusaale ahaan USDT card ayaad lacag ka qaadatay. Waa inaad 1 trade, 2 trade, 3 trade intaa aad ka qaadan karto kadibna aad iska bedeli karto oo mid kale bedeli karto sida euro iyo USDT oo kale haddana aad soo qaadan karto. Qaybta saddexaad waxay noqon doontaa sample candleska. Candleska sida loo akhriyo iyo barashadooda. Horta suuqu wuxuu ka kooban yahay labadan candle, bullish candle iyo bearish candle. Marka bullishku waxa la yidhaahdaa candleka casaanka ah ee ama selka ah. Bullishkana waxa la yidhaahdaa candleka akhtarka ah ee loo yaqaano buyga. Halkaas waxa la yidhaahdaa usha yar ee dheer upper wedge sare ku taal. Tanna waa lower wedge. Wedge waxa la yidhaahdaa usha yar baa la yidhaahdaa magaceeda. Candle body waa intan bodiga ee buuran ayaa la yidhaahdaa body. Waa candle bodygii. Tanna waa la midun. Marka waan iska dhaafayaa. Qaybtan halkaa ugu sareysa waxaan marka hore ku yiri upper wedge ayaa la yidhaahdaa ushan.
halkan waxaa la idhahdaa highest price waa halka ugu sareysa ee qiimuhu gaadhay. Horta qiimaha aan ku sheego, candle-kan waa candle body-gani halkaas ayuu marka ugu horeysa open halkan ayuu ka furmayaa, halkaana wuu ku xidhmayaa. Tusaale ahaan haddii aan meel biyo ku daadiyo, biyahaas meesha ugu badan ee ay iskugu imanayaan waa intaas. Marka intaa weyn ee goobada ay qabsadaan, biyuhu waxay samaynayaan duulduul. Waxaa la odhanayaa markaa duulduulkii wuxuu gaadhay halkii ugu sareysay. Marka ushan yar waa duulduulkii barayska. Marka barayska halkaa ayuu gaadhay. Baraysku halkan markuu gaadhayna, halkanna waxaa ku xidhmay candle body-ga ayaa ku xidhmay ama barayskii ayaa ku xidhmay. Xaggana wuu ka furmay. Halkani waa worst price, waa halka marka hore baraysku ka bilaabmayo, halka uu ku dhammaanayo ee barayska ugu sareeya gaadhayana waa ushaas. Marka halkanna waa la mid uuntanna halka baraysku isagu halkan ayuu ka furmaa, kanna halkan ayuu ka furmayey. Halkanna kani wuu ku xidhmaa, kanna xaggan ayuu ku xidhmaa. Intaa kale witchcardsna waa haysaa magaciisa, waa usha yar ee dheer baa loo adeegsadaa. Marka candle-ladii marka ay suuqa isku jirjiraan waa kuwan. Markanna halkanna waxaa la idhahdaa halka suuqa aad ka cabiranayso. Qaybtan waxaa la idhahdaa resistance, waa halka uu suuqu marka ugu horeysa support level, halkan support level line-kan ayaad san u dhigatay. Kadib suuqii wuu kacay, wuxuu gaadhay resistance level kale, ul kale oo halkaa dhigatay marka hore oo line kale oo aad saa u jeexatay ayuu gaadhay. Wuu ka soo degay. Candle support xaggan markaa waa support, xaggan waa support. Markaa support meel kasta oo aad markaa suuqa isticmaali karto ama aad ka geli karto. Xaggan kale waa support, suuqa kor ayaad uga raacaysaa. Xaggan kale waa support, suuqa ayaad kor uga raacaysaa. Marka resistance waa halka ugu sareysa ee isaguna suuqa uu ka soo xidhmo. Xaggana waa support level, waa halka ugu hoos laga raacayo suuqa ama laga gelayo ama laga trade garaynayo. Waxaa jira bust candles ugu fiican. Log witch candle-kaas ayaan ku horeyn doonaa. Waxaan log witch waxaa la idhahdaa waa kuwan. Log witch waa kuwa leh ushan dheer ee witchka kuwa leh markuu up trend yahay iyo marka uu down trend yahay. Marka uu up trend yahay waa kan usha dheer ayuu leeyahay, markana usha dheer ayuu leeyahay. Waa candle-lada sidaas usha dheer u leh ayaa la idhahdaa. Log witch waa kuwa ushu gaaban tahay, body-guna yar yahay. Marka body-ga ayaa yar, ushuna way dheer tahay. Marka body-ga ayaa imika yar, kana very log witch small body, kana small body-giisa ayaa aad u yar oo usha ayaa dheer. Kana witchka ayaa aad u dheer oo body-ga ayaa yar. Body-guna wuu yar yahay, ushuna way dheer tahay. Marka uu up trend-ka halkuu ka gelaya, halkaasuu ka gelaya. Up trend waa ka imka, laakiin waa in matan suuqaas leeyahay candle dhaadheer, waa in marka hore leeyahay xagga sare ka galay. Candle-kaasina uu sal yahay. Waa kan isagoo up trend-kii xaggaasuu ka gelaya suuqa. Up trend waxaa la idhahdaa suuqa kor u socda. Suuqa markuu kor u socda halkaa ka gasho. Suuq kastoo up trend-na fursad buy unbaa ka bannaan ee fursad sell kama bannaana. Up trend haddii aad markaa doonayso inaad suuqa ku trade garayso, hal fursad oo buy unbaad ka qaadanaysaa. Ka qaadan maysid fursad sell. Down trend waa kan markuu down trend yahay suuq xagga hoose ayuu ka galaa. Waa kan log witch support. Fursad kasta oo down trend hadduu suuq yahay, suuq waa marka hoos u socdo, fursad keliya oo down trend oo sell ayaa ka bannaan. Xaggaas baad ka soo gelaysaa. Support level halkaas ayuu istaagaya. Marka meesha support level leedahay ayuu ka galaa candle-ladaas lagu arkaa. Witchkoodu aad u dheer yahay, body-guna uu yar yahay. Lixdan candle waa lixda candle maalo bookcode option sida shaashada ka muuqata. Waa hammerka, shooting star-ka, evening star-ka, morning star-ka, bullishka iyo bearish-ka. Labada candle iyagoo faahfaahsan ayaan si fiican usoo dhigi doonaa Telegram-ka. Shooting star-ka haddaynu soo qaadano waa kan. Shooting star waxaa la idhahdaa candle-ka ushiisu aad u dheer tahay, laakiin body-giisu yar yahay. Ushan 3 jeer haddii body-ga laga dhigo ushan buuxin karo ayaa la idhahdaa shooting star. Mar waa sell, marna waa buy. Markuu buy yahay, ushiisu in yar ayay ka soo baxdaa marka uu buy yahay. Halkaa marka aad ku aragto fursad kasta oo shooting star aad ku aragto suuqa, xaggaa haddii ay buy ka xigtay, sell ayuu suuqa ka dhigaa. Suuqa shooting star-ku suuqa sell ayaa loo galaa. Sell ayaad u galaysaa. Haddii uu halkan ka xigo candle buy oo isagu soo baxo isagoo buy suuqa sell ayaad u galaysaa. Taana niyadda ku hay.